munaasabadan ballaaran oo isugu yimaadeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku nool London ayaa lagu qabtay galbeedka magaalada London iyadoo ay ka soo qayb galeen boqolaal Soomaali ah waxaana ujeedadeeda ugu weyn loo qabtay xafladani ay ahayd in la guddoonsiiyo abaalmarino dad si aad ah uga dhex muuqday bulshada Soomaalida waxaana goobtaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyay shirkado hay'ado saxaafadda tacliinta iyo waliba shakhsiyaad gaar ah waxaana umuurtani isku soo xil saartay hay'adda marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan haya ugu horeyntii waxaa halkaasi abaalmarintii ugu horeysay la guddoonsiiyay shirkadda Dahabshiil oo ka mid ah shirkadaha xawaaladaha oo toddobaatamaadkii la aasaasay waxaana guddoonsiisay haweeneyda maayarka ka ah degmada Hillington ee munaasabadu ay ka socotay dhanka kalena isla shirkadda Dahabshiil ayaa iyana guddoonsiisay hay'adda ADT oo iyana la siiyay abaalmarin loogu aqoonsaday inay tahay hay'adaha gargaarka midda ugu fiicneyd sanadii laga soo gudbay Cabdiraxmaan Sheekh oo isagoo guddoomiye ka ah hay'adda ayaana la guddoonsiiyay dhanka isboortigana Axmed Cheel oo isagoo ah aabaha isboortiga ayaa isna guddoonsiiyay bahda isboortiga oo ugu horeynba la siiyay Cabdisalaam Yare oo isagu ciyaara naadiga Manchester City iyadoo uu u qaaday aabihii dhanka kalena Xawataako iyana ah xidigta Jenyo ayaa halkaasi lagu guddoonsiiyay abaalmarin iyo waliba orodyahankii caanka ahaa iyo macallin Daahir oo isna tababare ka ah kooxaha ka dhisan dalkan Ingiriiska dhanka saxaafadda TV-ga caalamiga Universal ayaa isna la guddoonsiiyay abaalmarin iyo website-ka Hadwanaag iyo kuwa kale oo aad u fara badan shakhsiyaadka sida goonida ah abaalmarinada loo guddoonsiiyay ayaa waxaa ka mid ahaa wariye Cabdisalaam Ibraahim Hareeri oo la guddoonsiiyay abaalmarin qaas ah iyo waliba abwaan Cabdi Shire oo isna abaalmarin qaas ah la guddoonsiiyay maadaama uu yahay abwaankii u sarakacay dareenka bulshada sida aad arkaysaan dadkan iga dambeeya ayaa dhamaantood waxay yihiin dadkii la guddoonsiiyay abaalmarinada quruxda badan waxa ka mid ah shakhsiyaad si gooniha loo siiyay hay'ado iyo waliba shirkado tani waxa ay ka mid tahay abaalmarinta la guddoonsiiyay TV-ga caalamiga Universal haddaan nahay ururka haya waxaanu soo qabanay barnaamijka la baxay Somali Achievement Awards 2009 oo aanu ku qabanay xaafadda Hayes barnaamijkan aanu qabanay dadka Soomaaliyeed waxa achieve gareeyay ama dadkooda wuxuu qabtay ama wadankooda wuxuu qabtay oo aanu ugu faraxsanahay inay maanta halkan isugu yimaadaan xafladan oo meel kasta laga yimi Manchester Sheffield meel walba laga yimi Bristol aad baan ugu faraxsanahay sanad walba aanu qabanaynaa waa guul caawa dadka Soomaaliyeed ee UK u soo hoynay inay meel isugu wada yimaadaan oo celebration-ka ay galaan hay'adan abaalmarinta bixisay ee lagu magacaabo Haya ayaa waxa ay noqotay hay'adii ugu horeysa ee isku soo abaabusha in abaalmarin noocan oo kale ay guddoonsiiso shakhsiyaad muhiim ah ama hay'ado iyo waliba shirkado waxtar u leh bulshada Soomaalida haddaba abaalmarintan la guddoonsiiyay dadkan aad arkayseen ayaa waxa ay ahayd kuwo mutaystay in la guddoonsiiyo waana markii ugu horeysay hay'adani ay ambaqaado iyadoo eegaysa waxtarka ay sameeyeen dadkani abaalmarinta caawa halkan lagu guddoonsiiyay tani waxay tusaale u noqon doontaa shirkadaha kale ama hay'adaha kale ee ka jira dalkan Ingiriiska iyo dunida dacaladeedaba in sidan oo kale ay u gartaan xuquuqda ay leeyihiin dadka waxqabadka u leh bulshada Soomaalida Ibraahim Cumar Baafe wararka Universal London